muddo laga joogo 29 sano iyo hal bil baa ninkan shaydaankan inta ku jiraan ninkan magaciisa la John Lewis baa lahaa marka shaydaankan wuxuu soo alifay fikradan maamul goboleedka la dhahayo maamul goboleedka taqaanaan baa malaynaya wadanka maanta ka jirta waxa weeye maamul qabyaalad ku dhisan ninka soo alifay way soo jeedaan shaydaankan soo alifay marka wax la iska dhahayo maaha ninkan waxa weeye wuxuu shaqayn jiray jaamacad weyn oo ku taala London oo la dhaho London School of Economy uu shaqayn jiray anthropology wax la dhaho uu specialist ku ahaa marka ninkan baa report buu soo alifay oo reportkaas wuxuu halkaas uu Soomaali planku Soomaali soo dhigay hay'ad in wadanka la kala gogoyo wax la iska dhahayo maaha reportkii indiina ku arkartaan ninkii hoos buu jiraa marka kan reportkii title-keedii soo jeedaan waxaan ugu jeedaan reportkaas waxa la dhahaa Study of Decentralized Political Structures for Somalia hoosna soo ugu jeedaan waxa dhahay the term Somalia refers to what was formerly known as the Somali Republic marka ninkan reportkan uu soo qoray wuxuu uga hadlayaa sidii Soomaaliya loo kala gogoyn lahaa si maanta Soomaaliya maanta tahay oo maamul goboleed koorno walba ugu jirto fikradeeda inta uu ku soo dhigay soo jeedaan marka reportkan waxaa la soo diyaariyay Agoosto 1995 marka sanadka soo socda 30 sano buuxsami doonta marka reportkan waxa la ku bixiyay waxa weeye waa European Unionka waxaana ninkan ka caawiyay reportkan inuu soo sameeyo United Nations baa ka caawiyay waxaan ku jeedaan waxa weeye waxa la European Unionka iyo United Nationska waxay rabeen meeshan inay dawladnimo soo laabato dawladda Soomaaliya inay soo laabato ma la maro marka la rabaa in la dhiso maamul qabyaalad ku dhisan marka waxa weeye cadownimo oo cad ah weeye oo loo bareerayo weeye marka meeshan waxa lagu talagalay dad isku diina isku dhaqana isku luqada isku kala isku wax badan dad wadaaga oo hadii oo la fiiriyo xitaa aan wax badan aan kala fogeyn oo xitaa hadii doonaan xitaa dad isku family ah baa la kala qaybinaya dad muslimiin baa la kala qaybinaya marka meeshan cadownimo caadi ah weeye oo loo bareerayo marka Soomaaliya waxa weeye mindiyada baa loo soo faysanaya laakiin Soomaaliya xasma jidda maanta waxa weeye Soomaaliya qabyaalad leh baa diin u noqotay oo waxa weeye waxaas baa loo jeedaa marka ninkan waxa weeye 10 sano ka hor buu dhintay laakiin hadduu maanta noolaan lahaa waxa weeye uu farxi lahaa fikradiisii maanta waa taas ka hirgashay Soomaaliya maanta Soomaaliya koon walba waxa ka jirta maamul qabyaalad ku dhisan Soomaalina waxa soo jecel yihiin arka bas uu xafideen si uu jecel arka marka fikradan uu ninkan uu soo alifay 30 sano ka hor sidee bay wadanku timid mahma Soomaaliya waa maqasheen oo malaynaya oo la dhahayo nin baa gobma waa maqasheen baa malaynaya Soomaaliya maanta aad waxa ka macaawin in la sugto waxaan dadkan mas'uuliyad loo dhiibanayo macaawino bal wax xisaabtama marka macaawin hadaa qaadatid balaayo dhan baa ogolaanaysa inaad qaadatid marka wax walba xun oo maanta wadanka Kenya oo lidku diinta oo lidku dhanka Soomaaliga waxa weeye macaawinadaas baa la soo raaciyaa marka macaawinadan hadaa talaleyn Soomaaliyeed iska qabto marka fikradaas maamul goboleedka la dhahayo macaawinadaas baa la soo raaciyay marka ninkanna waxa weeye asagana sihan cadow buu ku ahaa dawladda Soomaaliya sideetanaadkii markayd baa ninkan United Nations baa contract soo siiyeen oo waxa la Soomaaliya tag oo dad soo kala baro sababtaas ninkan specialist wuxuu yahay waxan anthropology la dhahayo oo ah maado oo la kala baranay dadka si dhaqankooda iyo waxaas marka ninkan markuu oo Soomaaliya yimaaday waa la tarxiilay waa la ceeliyay ma soo geli kartid balla dawladda sidaad baraasas tiri saas waxa weeye wuxuu arintan uga sheegayaa buugan uu qoray buugan waa kana soo jeedaan waxa la Adventures in Somali Anthropology marka linkigeeda hoos ku jira marka halkaas wuxuu ku sheegayaa in ay dawladda sidaad baray ay ka tarxiisho wadankii marka hawsha qaban lahaa marka ninkan dawladda Soomaaliya markii jirtay ama ogolaan jiray inuu soo galo waa looga sheedaan inuu yahay marka waxa weeye wuxuu wadankii yimaaday oo markii dawladda dhacday buu markaas wadankii yimaaday
يا مركا نينكان oo kale waa cadow caadi ah oo cad ya marka arintan waxa weeye oo maamul goboleedka la dhahayo waa waxa maanta ay Soomaaliya ay nidaamka dawladda ugu soo laaban lahayd weey marka waxaan dadka faa'iido kuma qabaan marka nimankaas dibirada waaweyn ba faa'iido kaliya faa'iido ku qaba ay kaliya oo ba kaligooda ku nool marka dadkan waxa weeye inta ugu jidaan sabab ay waxaas ugu farxaan ma jirto laakiin taas waxa keenaysa jaceylka loo qabo qabyaaladii baa diin noqotay Soomaaliya diin ka noqotay marka maamul goboleedyada markii oo la soo raacay macaawanadii oo wadankii la keenay oo la bilaabay oo la hirgelinay baanin macallin maxamed la dhaho baarintan ka qayliyay dadkii reportkii buu soo bandhigay videoyaal buu soo diyaariyay meel buu tagay marka waxyaalaha oo odayga iska qaylinayay xilligaas waxa weeye run bay noqotay ya waxyaalaha qaarkood uu ka qaylinayay maanta baab ka arkaysaa way ka jirtaa koonfur galbeed bay ka jirtaa Soomaaliland bay ka jirtaa Puntland bay ka jirtaa Jubaland bay ka jirtaa marka wixii run bay noqotay ya marka hada arka waxa weeye taas waxa weeye macallin maxamed video uu soo saaray markaas baa hadda inta arkayna halka document baan caawa idin ku hayaa anu meel Soomaali wali lagu soo bandhigay ma hayo documentiga magaciisa waxa la yiraahdaa study of centralized political structures for Somalia menu of options waxa la dhameystiray 1995 waa documentigii ugu horeeyay ee la soo saaray ee Soomaaliya dawlad xoog loo ishaysataa inay dib uga dhalan lagu soo taliyay documentiga waxa maal galiyay EU waxana loo xil saaray London School of Economics 7 professor oo ka tirsan oo ninka ugu caansan ee la yaqaan Soomaaliya oo taqaanay yahay Professor Ian Lewis natiijadii ay ka soo saareen way asalkana waxa way farta yara ugu hooseysa ninkii akhriya wuxuu ku arki doonaa waxa ku qoran the term Somalia refers to what was formerly known to Somali Republic wixii Soomaaliya dawladda Soomaaliya la oran jiray baan hadda uga hadlaynaa Soomaaliya halka waxa arkaysaa in laga saaray documentiga markii la diyaarinayay wax Soomaali dawladnimo Soomaaliyaba inay meesha ka baxdo documentigaas way asalkiisuna meesha problemka maanta Soomaaliya haysato waana haddaad ilaa detailkiisa hoostiisa si akhrido ilaa xad waxa laga gaaray leeyahay caasimada waa in Muqdisho laga saara laga bedela buugaas ku qoran tahay halkaas ay ku qoran tahay waxaad ogtihiin marka isdilka iyo dhibaatada maanta Soomaaliya ka taagani Soomaaliya waligeed waa jiri jirtay Soomaaliya waagi hore qofka Soomaaliga ah wuxuu ku dhaadan jiray Soomaalinimo qarannimo lagu dhaadan jiray hadda magaalada aan joogno intaas oo xaflada laga qabtaa waxaad arkaysaa maanta waxa loo dabaaldegayaa Puntland bari waxa loo dabaaldegayaa Somaliland galmudug baa loo dabaaldegayaa Jubaland war Soomaaliya xagee ka baxday Soomaaliya xagee ka baxday dawladnimadii iyo qarannimadii Soomaaliya xagee ka baxday buugaa yar fikradda ku qoran baa lagu baabi'iyay waxaan hadda gaalkacyo dhibteeda badatay laakiin waxaad ogeytaa inay gaalkacyo ugu horeynin dawlad goboleedka laga dhisay Baydhabo markii la dhisay talaabadii ugu horeysay qaaday muxuu noqday ciidamay soo kaxaysay calanna way soo qaaday jaziira ka taagtay jaziira oo xamar duleedkeega ka taagtay maamulkii gobolka Banaadirna ciidamo u diray isku dhaci ugu horeeyay halkaas uu ka dhacay meel walbana sidaas uga dhici doona Soomaalidu himilay lahayd xuduud bay eegi jirto dibadday eegi jirtay dalalkii ka maqnaabay ku sii jeedo xuduudda dibadday eegi jirtay laakiin hadda waa maxay waxay u soo jeesatay xuduudaha dhexdooda Soomaaliya hooy bay u ahayd qof kasta oo Soomaaliya sheegto ninka Cali Sabiix ka yimaado Djibouti agteeda iyo ka Siyoolo ka yimaado iyo ka Hawaas ka yimaado qofka Soomaaliga ay xamarweyne ku dhasho la xuquuqaha wuxuu kaliya ka xigay waxay ahayd guriga isagu leeyahay iyo beerta isagu leeyahay isku xuquuq bay ahayd laakiin maanta maxaynu aragnaa qof Soomaaliya dad Soomaaliya laga tarxiilayo gobol Soomaaliya la leeyahay uma adalanin meel kala doctor laga soo tarxiilayo waxaan u maleynayaa taas inay cad tahay meesha meel ka xun baynu gaari doonaa federalismku wuxuu ina geliyay ummadii ciriiri hatta dhaqaalihii iyo baabi'iyay waayo xabada mooska ama xabada cambaha ee jilib laga keeno marka ay afkooda lagu soo cashuuro ee xamar lagu cashuuro ee jawhar lagu cashuuro ee cadaada lagu cashuuro gaalkacyo lagu cashuuro qiimahay ku tagaysaa boosaaso
alaabta boosaaso laga keeno ilaa qolo kastoo dawlad sheegatay waa inay cashuur rays garaysaa waa inay cashuurtaa waa dhaqaalaha iyo ummadii Soomaalida halkaas la geliyay meel kasta waxa laga dhisay dawlad iyo baarlamaan iyo wasiiro kharashka ku baxaya dawlad goboleed kasto ay maamulkeega iyo madaxdeeda iyo baarlamaankeega lagu bixinayo intaasoo iskuul Soomaalida biyo la'aan baa laysay ceelal bay u qodi lahaayeen wax alla waxay qabanayaan ma jirto wax allaale wax maanta ay u hayaan baarlamaanka dawlad goboleedku wax allaale wuxuu hayaa ma jirto meesha markii ugu horeysay magac federaal iyo soo galaa waxay ahayd waagii gumaysiga wadanka haystay gobolada Soomaaliya kamida uu Talyaanigu wuxuu ku qanciyay isku dayay inuu ku qanciyo inay Soomaalida kale ka duwan yihiin sida daraaddeed say xuquuq u helaan Soomaaliya markay dawlad qaadato waa inay ku mudacaan federaal in la sameeyo falxamdulillah dadkii Soomaalida markaa hogaaminayay gaashaanka u daruureen halka kama soo kicin kii labaad ee ku soo xigay ee Soomaalida lagu baabi'inayay waa kan marka waxaan u maleynayaa bari waxa ka xigta dawladii Soomaaliya jabhada lagu burburiyo cadowba soo hogaamiyay haddana magacii Soomaalinimo dawlad goboleedya bedelay barina waxa ku xigto ogaada dawlad goboleedku wadankay rabtay ku beeri kartaa habba ciidsanina arinta waxaan xasuustaa dawladda Jubbaland markii la dhisay dawlad goboleedka Jubbaland madaxdii u tartamaysay nin kamid ah Sheekh Shakuul waa arintaasi meel walba ku taala wuxuu ku khudbeeyay Kenya waa stakeholder bay ku tahay arrimaha Soomaaliya yaani qayb bay ku leedahay waa in laga talageliyaa Faarax Macallin oo ahaa afayeenka baarlamaanka Kenya ku xigeenkiisu ninka darajada jooga siyaasad dawladeed waxa ay ku hadli karo muxuu yiri maanta intii ka dambayso afmadow iyo badhaadhiye Kismaayo Muqdisho laga xukumi maayo hadayna dawladda Kenya raali ka ahayn hadalka kuma hadleen maxay la waa gudoomiye ku xigeenkii baarlamaanka Kenya afayeen ku xigeenkii buu ahaa anigu waxaan leeyahay bari waxa inoogu xigto dawlad goboleed kastaba kililka laxaad iyo sharaad waxay noqotaba kuwa ha ku biiraan waxa ku soo gabagabaynaya arrin waxooga aad iyo damaqday magaalada Boorama waxaan ka soo raacay basaska caasiyada yareerka 2013 Hargeysa oo soo socdaan shirkan fuulay yarkiiba wuxuu igu nagu shiday heesa xabashiya af axmaari markaas aan adeer man laga damisid intuu igu soo jeesto yiri adeer miyaanad ogeyn kililka lixaad inaan ka mid nahay maxaad ku hadlaysaa inaan kililka lixaad ka mid nahay miyaanad ogeyn wiilka yarka ah ee darawalka aan aqoonta lahayni Soomaalidu waxay tahay dhariga maxaa ka keenay karka kuleelka wuxuu arkay uu hadalka u yiri anigu waxaan leeyahay Soomaalidu haystaba qabato inta goori goor tahay hal la istaba qabto qarannimo sidii loo soo celin lahaa hal lagu dadaalo taasna waxa lagu heli karaa in Ilaahay laga cabsado وحدة الصومالية أنا لقى شقيه